السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu ka bilaabi doonaa tan weedhiskeeni English to Somali aynu ka dhigin vocabulary-ga ahaayeen iyagana hadii ilaahay ka dhigo halkan iyagana kusoo gudbin doonaa si aynu isla ogeyn isla hadii ilaahay ka dhigo wada soconay ereyga koowaad wuxuu noqonayaa publish soo bandhigid publish soo bandhigid modify isbedelid modify isbedelid seek raadin seek raadin function shaqo function shaqo obtain helid obtain helid invest maalgelin invest maalgelin allocate u qoondayn allocate u qoondayn enforce xoojin enforce xoojin contribute ku tabarucid contribute ku tabarucid generate jiil generate jiil macnaha markaynu jiil leenahay waa dhalin oo kale ama jiil ay sax ku tahay tusaale kale markaad leedahay kale jiilkii saddexaad iyo jiilkii afraad iyo saas oo kale marka generation intaan la gaadhin jiil baa la taagan yahay marka hadhow way isu rogaysaa waxa loo yaqaanay dhalin bay taagan tahay jiil baa hadhow isu rogaysaa Soomaali ahaan waa ku caynkaas oo kale hadayna Soomaaliga si faahfaahino marka halkaas ay nagu joogi doontaa 10 kaana hadii ilaahay ka dhigayo waxaan in yar idinku darayaa af Soomaali ahaan idinku kordhinaya saa wada ogtihiin erayadan marka la soo hadii ilaahay ka dhigayo la soo gudbiyo ee la soo dhigo please waxa ku samaysaan jumlada ku dhisa saa hadii ilaahay ka dhigo oo xifdidaan oo u fahantaan macnaha ay sameynayaan sida imika allocate oo kale imika hadan macnaheedu dib ku yara noqdo allocate waxa weeyaan waa u qoondayn marka leedo kale waxa loo qoondeeyay inay waxaas inta ku kacaan tusaale oo kale marka qoondayntu waa saas oo kale ereyada kale macnaheedu qaar baad af Soomaaliga iska raadkaanay laakiin saas sax ku yihiin